Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda qiimaha badan. Waxaan ku suganahay magaalada Kaasha halkaan oo aad mataqaanaa kala socoto dhacdooyinka channelka aad kala socoto waxyaalo badan aad ka hesho siyaasad waxyaalo badan howlaha adduunyada. Halkaas aan idin tusayo hadda waa magaalada Kaasha baadiyaheeda, waxaana ku magac dheer tahay Leen Mugdi. waxay ku magac dheer tahay Leen Mugdi. Marka waxaan rabaa wax yar inaan idinka tuso dhirta ama quruxda mataqaanaa. sida arkayso hadda waxaan idinku hayo waa acacia tree ama sida loo yaqaano abaqya. geedahan natural trees waayay. waa haddii bini'aadanka uu mataqaanaa uusan interference ku sameynin, ilaahay dhulkiisa mataqaanaa quruxdiisa waa arki kartaa. waa la degan yahay halka arkayso. haddaan kusoo zoom gareeyo wataa waa la degan yahay. that is aqal heriyo, cid baa degan. sidoo kale haddaan inta u soconno cid kale degan badada dhexdeeda, cid kale degan. waa taas waa aqal kale oo mataqaanaa aqal heriyo sida arkayso. laakiin dhibaatooyinka keeno geedahan quruxda badan ee ilaahay mataqaanaa na siiyey. ilaahay quruxdan faa'iidada badan xoolaha daaqayo. geedka abaqa markaad aragtid faa'iido badan buu leeyahay. mirtiisa xoolaha daaqayaan ama booqa igu soo dhaco hooskiisa la hiranayo. waxaa kaloo rabaa inaan idin tuso bini'aadanka asaga gacmihiisa iskugu keenaa dhib. hadda sidan oo kale waxaad ka arki kartaa meeshan geedkan waxaa laga sameeyey dhuxul. laakiin balse dad bini'aadan ma duminin oo dhuxushan waxaa looga samaystay markuu geedkan dabeel ay riday ama uu mataqaanaa waqtigiisa dhammaaday ayuu dhacay. marka sidii ayaa haddana faa'iidadaasa laga keensaday dhuxulaha laga sameeyey. marka sababta aan idinla qaybsanayo quruxda iyo environmentka quruxdeeda waxaa weeyaan meelo badan baa jira oo aan jeclahay inaan focus ku qabto idin tuso oo abaq ama duur qurux badan oo sidan oo kala qabtay oo maantana bannaan ah meel hataa laga istaaga aan la helinin. hadda waxaan joogaa magaalada Kaasha duurkeeda ama baadiyaheeda sidaan idin sheegay oo horaan idinku sheegay channelka Leen Mugdi oo meel qiimo badan oo dadka degan yihiin xoolo badanna lagu haysto geel ari lo waxaanan joogin ma lahan. ma garateen waa kaas idaa iska daaqayo bini'aadankana ku hoos sheerayaan oo diin baa lagu akhrisanayaa. faa'iido badan fadhiyaa lagu gelayaa geedahan hoostooda. faa'iido badan baa lagu haystaa. marka sida ayada waxaasoo aad arkayso oo geed wax bini'aadan abuur maaha. waa natural trees ilaahay baa nagu manaystay. marka bini'aadanka khasaaradu isku keenaya waxaa waaye hunguri ama lacagasoo ka raadinayo ayuu dhuxul charcoal burning ayuu intuu bilaabo ayuu dhirtan quruxda badan baabi'inaya. meelo badan baan focus ku qaban doonaa insha allah. hadda meeshan Kaasha kama jirto deforestation levelkaasita dhan oo deforestation xun kama jiro. waad arkaysaa abaqdii weli way jiraan. wixii dabeel iskaga dhacay ama duqnimo ama cimri ama geedka duqoowe iska dhacay mooye sida kale waa okay. but there are some areas within Saqa ward oo Saqa ka xisaabsan oo dhirtii ay ka baaba'day. hadda geedkan waa caday faa'iido badan buu leeyahay. toothbrushka laga helayaa ama cadayga oo lagu cadaysado lagu rumaysto. marka waxaa naga daawanaysaan Daafac official channel halkaasoo aad ka helayso waxyaalo badan oo bulshada aan ku wacyigelinayno ama aan la socodsiinayno ama akhbaar aan ku siinayno.
marka insha allah stay tuned waan sii socon doonaa meesha ka duwan baan sii mari doonaa waana warar kala duwan oo ku saabsan abaqdeena quruxda badan iyo dhirteena quruxda badan ayaa insha allahu idinla soo socodsiin doonaa stay tuned